assalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijkeennii diblomaasi waxaynu wada ognahay dadyowga adduunka dhaqamadoodu inuu yahay mid aad u kala beddelan diime ahaan iyo dhaqan ahaanna ay yihiin kuwo aan isu dhoweyn. barnaamijkeennan diblomaasina waxaynu ku qaadaa dhigaynaa dadyowga qaar khuraafaadka ay aaminsan yihiin ayna ugu dhaqmaan sida maalinlaha ah, iyadoo aanu idiin ballanqaadayno hadduu ina cajab geliyo barnaamijkani inaannu idiin badin doonno samayna doonno barnaamijyo kaloo la mid ah. dadka reer Sweden waxay nasiib darro u arkaan in furayaasha la saaro miisaska dushooda. haddii arrintaa aad samaysana aad la kulmayso noloshaada oo dhan ayaan darro weyn. daawada haddii aad ku nooshahay dalka Sweden oo qof dalka Sweden u dhashay furo aad miiska saartay uu kuu soo dhiibo, u mahadceli. waa qof kuu diiday ayaan darro kugu soo socota siduu aaminsan yahay. dadka reer Kuuriya ha ka sugin in qof saaxiibkaaya uu kaba kuu gado amaba xubin ka tirsan qoyskaaga. waxay u arkaan haddiiba qofkaba aad u gaddo in qofkaas maalinta ay kugu dambaynayso aragtidiisa uuna yahay qof ay adduunka uga dhammaatay. sidaa darteedna waxay kuugu diidayaan kabaha waa laxa jeclo ay adiga kuu qabaan iyo inay doonayaan inaad maalmo la sii noolaato. haddii aad booqato dalkaasna ha u gadin cidna kabo. dadka reer Jabaan marka ay seexanayaan madaxooda uma jeediyaan dhanka waqooyiga. dalka Jabaan gebi ahaanba xabaaluhu waa kuwo u jeeda dhanka waqooyi, waxaana qof walba oo dhinta dalka Jabaan xabaalihiisa loo jeediyaa dhinaca waqooyiga. dadka reer Jabaan ee noolnoolna waa kuwo aaminsan haddii ay madaxooda u jeediyaan si walbay u daalan yihiin dhanka waqooyiga in iyagana maalintaa la qaadayo. marka ay gadanayaan qalab hurdana waa kuwo ka taxadaraa in sariirta madaxeeda aana u jeedin dhanka waqooyiga. haddii aad ku nooshahay dalka Jarmalka amaba aad booqato, ha la yaabin haddii aad aragto qof Jarmala oo soo galay makhaayadda aad ku sugan tahay oo ugu horrayntiiba miiska 2 feer u geliyey ama 2 jeer garaacay. dadka Jarmalka xilliyadii hore waxay ka samaysan jireen miisaska geed ay aaminsanaayeen inuu yahay geedaan shayddaanku u dhowaan. ilaa iyo haddana dhaqankooda waxaa ka mid ah in miisaskaasoo dhamme ay ka samaysan yihiin geedkaas, maadaamana aan geedkaas shayddaanku u dhowaan looga baahan yahay iyagu inay taabtaan, waana mid ay iskaga ilaaliyaan ilaa iyo haddadan shayddaanka. balse geedkaasu ma aha mid wakhtigan laga sameeyo miisaska, waxayse noqotay qayb dhaqankooda ka mid ah, waxayna u haystaan weli miisaskaasoo dhan in laga sameeyo geedkii shayddaanka mamnuuca ka ahaa. ha u qaadan wax kale, waa nin baraka doonaya. dadka reer Filibiin waxay rumaysan yihiin xilli roobaadka haddii aad gashato dhar cas inaad dhimanayso. waxay rumaysan yihiin hanqarka onkodka la socda inuu bartilmaameedsado midabkaa cas. daawada haddii aad booqato dalka Filibiin xilli roobaadka iska ilaali maryaha cascas. dadka Talyaaniga lama weydiiyo inay kuu macnayaan saliidda oolifka la yidhaahdo. haddaad tidhaahdo erey iigu kala dhig saliidda, gebi ahaantood way kaa xanaaqayaan. sababtuna waa xilliyadii hore saliidda oolifka la yidhaahdo waa saliid saytuunka ee waxay ahayd midaan cid waliba gadan karin, waxaana isticmaali jiray oo keliya dadka hantiilayaasha ah iyadoo dhibic ka mida oo daadataa. dadka Talyaaniga ay u arki jireen ayaan darro weyn inay tahay, waxayna u arkaan saliidda oolifta ah inay tahay midaan sinaba looga maarmin. qofka haystaana uu yahay qof hantiile ah amaba noqonaya hantiile. waxayna aaminsan yihiin inta ay kuu macnaynayaan haddii ay erayada saliidda khaldaan inay u horseedayso arrintaasu fakhri aan dhammaan. dadka Ingiriiska ayaa waxay leeyihiin khuraafaad cajiib ah. bil walba maalinta u horraysa aroorta hore haddii aad 3 jeer tidhaahdo bakayle bakayle bakayle, waxay aaminsan yihiin bisha inay kuu imanayso hadiyadaadu badan. ciddii la doonaaba ha kuu keentee waxay rumaysan yihiin in boorsooyin badan laguu soo rarayo. alla ilaahay tan waa midaynu tijaabin karno, balse daawada adigu iga horray. bisha 9aad kowdeedana isku day 3 jeer inaad bakayle 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 tiraahdo. iina soo sheeg, waxna iga soo gaarsii boorsooyinka lagu keeni doono. Faransiisku waxay aaminsan yihiin saxarada ayga haddii aad saarto lugtaada bidix inaad la kulmayso nasiibaadu wanaagsan, balse waa markii aad iska tirtirto horta marka hore saxaradaas. waxay kaloo aaminsan yihiin saxarada ayga haddii aad midigta saarto in nasiib darro kuu bilaabatay.
dadka shiinayska waxay khatar iyo halis weyn u arkaan iyo wax laga cararo nambarka 4 ah. waxay u arkaan nambarkaasu inuu yahay sidiisaba mid shar soo wada, waxaana uu la macno yahay afkooda dhimasho. waxaana qof walboo shiinaysa uu aaminsan yahay fakhri, dhimasho, colaad, gaajo inuu noloshiisoo dhan ku sugnaanayo haddiiba uu la kulmo tirada. waxaa jira dadyow badan oo guryo dhaadheer dhistay kana tegay dabaqa afraad oo aan dhisinba. sidoo kale tagaasiileyda dalka Shiinaha ayaa gebi ahaanba diiday taarikadooda inay ka mid noqdo tirada 4 ahi.